بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا صوماليد ميلة جوجتان بإله سبحانه وتعالى دكوان ما هي لو عدي دبنبك الله كقادو عدي دن الله في انت بهنا الله ديقو انت بكت الله بوكسي انت دمتي الله ونحرستو والدينتان الله ونحرستان نغنا الله نوغدا ونحرستو dalka diinta dadka iyo dowladnimadaba ilaahay subxaanahu wa tacaala haynoo badbaadiyo. maanta waxaan ka hadli doonaa saddex qodob. qodobka koowaad markabka muqdisho yimi kelmadaan ka oran doonaa. qodobka labaad xaafuun iyo garacad oo iyaduna hadda soo gashay sheekada, iyadana kelmadaan ka oranaya. qodobka saddexaad habartii gaabnayd xogtii aan ka sheegnay na kelmad baan iyadana ka oranaya. markabkaas yimi dalka F514 la yiraahdo waxa uu ahaa waa markab dagaal cusub 2017kii baa la sameeyay. waxa uu u socdaa oo destinationkiisa ugu dambeeya uu yahay Japan, halkaas oo uu kaga qayb gali doono xaflad ama sanad guuradii 134 markabkii Turkiga ee la oran jiray Ertugrul Frigate ama Frigate ee la oran jiray oo xilliga tagay Japan. markabkaas oo loogu magac daray asaasiga boqortooyada Cusmaaniyiinta ayuu u socdaa xaflad loo dhigayo iyo taalo looga sameeyay magaalada Japan ku taala ee la yiraahdo Kishimoto ayuu kaga qayb galaya ama Kushimoto ayuu kaga qayb galaya xafladaas. markabkaasi wuxuu sii istaagayaa 22 dekedood. Soomaaliya waa kamid, waxaa kamid ah Sacuudiga, Jidda, Djibouti baa kamid ah, Maldives baa kamid ah, waxaa kamid ah Bangladesh, Kuala Lumpur Malaysia, Indonesia Jakarta, Bangkok Thailand, waxaa kamid ah Hong Kong China, waxaa kamid ah Busan South Korea, Japan Kushimoto, waxaa kamid ah Tokyo Japan, waxaa kamid ah Hiroshima oo isla Japan ah, waxaa kamid ah Singapore, waxaa kamid ah Sri Lanka Colombo, waxaa kamid ah Philippines oo Manila ah, waxaa kamid ah Doha Qatar, waxaa kamid ah Muscat Oman, waxaa kamid ah Mumbai India, waxaa kamid ah Karachi Pakistan, waxaa kamid ah Dubai Imaaraadka ah iyo Aqaba Jordan. intaas oo dhan buu maraya. waxaan arkayaa dad ka sheekeynaya oo si negative uga waramaya. innaga xageena ka khuseeya markabkan madaxweynaha federaalka Soomaaliya wuxuu ka dhex hadlay markabka. wuxuu noo sheegay markabkan inuu u yimi si loo muujiyo heshiiskii u dhaxeeyay ummadda Soomaaliyeed oo dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ay saxiixday iyo ummadda Turkiga. heshiiskaas oo ahaa heshiis difaac iyo ganacsi. waxaan kaloo dhageystay safiirka u fadhiya Turkiga Soomaaliya oo laga tarjumayo fariin uu ka sido wasiirka arrimaha dibadda ahaan jirayna taliyihii sirdoonka dalka. wuxuu sheegay difaaca ummadda Soomaaliyeed, amnigeeda iyo xasiloonideedu inuu ula mid yahay kan Turkiga. arrintaasi waa guul. waxay wadnaha ku dhufanaysaa miskiinkii yaraa oramkii Abiy Ahmed. in lagu dabaaldego lagu farxo ayaa loo baahan yahay. aad baan ugu faraxsannahay. arrintaasi waa guul. hambaliyo madaxweyne. waxaan kaloo rabaa inaan ummadda u sheego marka ay dalka iyo dad baadiya ishayaan dalkaynu la jirnaa. mucaarad markaan nahay iyo muxaafid markaan nahay, haddii dalka iyo cid kale ishayaan dalkaan la jirnaa, kulligayana mid baan nahay. arrintaasi marka waa arrin guul ah. maxaa diidaya markabku inuu hawshaas isaga socdo, waddamadaas oo dhanna marayo, Soomaaliyana uu marayo oo ay ka mid tahay waddamada la marayo, laakiin uu ujeeddo labaad leeyahay markuu Soomaaliya imaanayo oo ah tan qeexan oo wasiirka arrimaha dibadda fariinta laga siday ah oo ah difaaca ummadda Soomaaliyeed iyo heshiiskii ganacsi iyo difaacu aan wada galnay baa la xoojinayaa oo la muujinayaa jiritaankiisa. maxaa diidaya taa? waxaa diidmaya. labaduba waa iswaafaqsan yihiin.
marka adoo u heli kara guul inaad ka dhigtid inaad guul darre ka dhigtid sharaf iyo karaamo midna maaha adna wax ku tari mayso dalkana waxbay yeelaysaa arrintaas waxay dhib ku tahay ka naxaya Abiy Ahmed iyo cid alla ciddii isaga la mid ah Abiy Ahmed oo adigu deked lagu soo istaago markab ku yimaado aad ku dhoolo tustid ma lihid xasan kaasuu ku baashaalaya adigu ciid markab saaran oo aad sawiratay oo aad ku riyootay adigu markabkaasu ciidaas uu saaran yahay ay tahay bad halkaasaa lagugu imaanayaa meeshaas ka fadhi weligaa laan lookid baa ahaanaysa taariikhda inta kaaga dhiman laan lookid baa ahaanaysa Ethiopia waa laan lookid and will remain laan lookid arrintaa intaasan ka oranaya markabka laakiin markaan ka gudbo oo guusha aan iska xiro hambalyada aan dawladda siiyana aan dhinac iska dhigo madaxweynaha su'aal baan weydiinaya dadka oo dhammi hadalkaagii waxa ku jiray dacaayad baa layga faafinayaa been baa layga sheegay waxaas akhriyaysa adiga ayaa isugu filan wareer iyo dacaayad madaxweyne adaa ka mas-uula cilladda in dadku ay aamini waayaan waxaa sheegaysid oo aad noqotid sidii Cumar Beenaale oo waxa aad sheegtid iyo ficilkaagu aysan iswaafaqsanayn madaxweyne adaa ka mas-uula hadda waxaa noo sheegtay inaad difaaca dalka iyo badda iyo ilaalinteeda aad ku wareejisay mas-uulna ay ka tahay Turkiga maxaad ka yeeshay kii imaaraadka oo ka horreeyay iyaga muxuu oo foosha xuma aadka u qaab darnaa oo aad siinaysa awood wax alla waxay rabaan inay dalka ka samayn karaan oo hataa aan maxkamad hataa la saari karin hadday dembiyo ku galaan dembiyo ka dhana aadanaha hadday galaan aan la weydiin karin maxaad ka yeeshay heshiiskaas kii Ethiopia waa fahmayo xiriirka wataan u jarnay Ethiopia oo halkaas ku dhintay laakiin kaas xagee ku dambeeyay xagee buu ku dambeeyay heshiiskii aad la gashay NAVFOR ama Operation Atlanta isaguna badda ilaalinaya burcadbadeedda ka ilaalinaya argagixiso iyo burcadbadeed iyo baan ilaalinaynaa oo difaaca baddan difaacaynaa ama ajnabi weerara iyo dhaqaalaan ka samaynaynaa oo dhaqaalihii baan heshiis kula galnay Turkiga haddii la yidhi iyagiyo dadkaasi ma isku dhacayaan lagu diriri doonaa meeshuma waxay noqon doontaa goob dagaal iyo kala reeb madaxweyne boolasigaagu ma cadda boolasigaagana waxaa curyaamiyey inta badan waxaa curyaamiyey dana shakhsiyadeed marka dadku inay kaa shakiyaan oo adna aad tiraahid maxaa la ii maagaya adaa ka mas-uula madaxweyne si hufan oo nidaama oo daahfuran hataa heshiiskaas aan taageerayno ma naqaan wax ku qoran hawadaanu ka maqmaqlaynaa iyagaanu waxyaaba ka heleelaynaa laakiin ma naqaan wax ku qoran wuxuu maaha habar qararfa oo ganacsi doon oo dukaan yar oo dabakaayo iyadoo ay leedahay suuqa bakaaraha ama suuq bacaad ku yaalla u soo adeeganayso waxeeda qarsanayso aymaano iyo ka qarsanaysa inay ogaadaan iyo kutubay inay ogaadaan alaabta ay gadayso si ay faa'iidada aysan ugu ciriirin ma aha madaxweyne waa dawlad adigu malihi dad baa kaa dambeeya oo kaala wareegi doona wax qoranoo la yaqaan oo boolisi ah baa lagaaga baahanya marka boolisigaaga diyaaraddii awaagii nala fuushay baan weli saaranay waa ku jaawareernay cilladda intaasaa keentay adiga ayaa ka mas-uula adigaana xallin kara musuq baan ka digayaa qaadkaan ka shaqaysanaya musuq baan ka digayaa dhulalkii baan gadayaa musuq adigaa lagaa rabaa isagaaji ficilkayga iyo afkayga raaca ficilkayga ha raacinine haddaa ka wadid ma shaqaynayso iswaafaji adigu qodobka intaasan ka ornaya qodobka labaad xaafuun waxay dhaheen waxaan ka dhisaynaa imaaraadku erebor waxaan ka dhisaynaa isbitaal waxaan ka dhisaynaa iskuol waxaan ognahay dekeda Boosaaso 10 sano ka hor in lagu wareejiyey ilaa iyo haddeerna aysan waxba ka dhisin xogaa yaroo macno lahayn waxaan ognahay ereborkii Boosaaso in la siiyey waxaan ognahoo kale wax lagaga bedeshay inaana aqoon wax alla waxa lagaga bedeshay waa habartaas qararafta ah oo bagaashka doonaysa oo ay kutubay iyo ay maalo ka qarsanaysa waddankii oo dhan wuxuu noqday qararaftaas nin kastoo meel horjooga ka ahi waa qararaf ganacsi doona keligiisa hadda jira walaalkiisaa la socday waxay ku heshiiyeen ma naqaan xaafuun laakiin waxaan